wuxuu ku saabsan yahay state government and citizenship dowladda xukuumadda iyo muwaadinimada ama dhalashada marka saddexdan ciwaan waaweyn mid baan arki doonaa understanding state fahmidda dowladda marka dowlad maxay tahay qaabab kala duwan oo waxaa jirta dowladda loo qeexay dhinacyo badan oo kala duwan oo laga qeexay waxaa la yidhi ereyga state ama termiga state waxaa loo isticmaalay in lagu tixraaco shayaal kala duwan oo muxuu ahaay wareer dhalin kara tusaale waxaa lagu macneeyay a collection of institutions hay-ado muxuu ahaay isu tag hayda koox hayda ama qayb dhula ama waxaa lagu macneeyay philosophical idea aragti falsafadeed ama agab loo isticmaalo baa la yidhi in wax lagu qasbo ama wax lagu dulmiyo and so on iyo sidoo kale kuyo kale macnayaal kalena way jiraan marka confusionkan ama wareerkan wuxuu ka imanayaa baa la yidhi xaqiiqada in dowladda loo fahmay afar dhinac oo kala duwan ama afar qaab oo kala duwan in dowladda loo fahmay marka idealist iyo functionalist muxuu ahaye afar dhinac marka mid baan arkaynaa afartan dhinac ee laga qeexay dowladda midda koowaad the idealist approach the state aragtidan oo inta badan wax ka qoray waa la ninkan la yidhahdo Hegel waxaa la ninkan saddex dhinac ayuu ka eegay muxuu ahaye jiritaanka bulshada oo ah the family civil society and the state waa qoyska bulshada rayidka iyo dowladda marka ninkan dowladda wuxuu u fahamsanaa oo uu arkayay as an ethical community underpinned by mutual sympathy bulsho anshaxeed oo uu isku hayo muxuu ahaayey isu naxariisasho ama isu danqasho laba dhinac dadku nin kasta ninka ruuxa kale u danqanayo wuxuu ugu yeedhay muxuu universal altruism marka aragtiyahan waxaa la yidhahdaa civil society-ga iyo family-ga iyo muxuu ahaay qeexitaanka state-ku ma kala cadaynayo qoyska laftiisa state yaa noqon kara qeexitaankan markii la saas meelaha ku liitayeen aragtidan midda labaadna waxaa weeye functionalist approach-ka iyagu waxay diiradda saareen baa leh roolka ama purpose-ka state institutions-ka iska leeyihiin hay-adaha dowladdu marka shaqada ugu muhiimsan ee ay dowladdu leedahay waxay u arkayeen kuwan inay tahay maintenance of social order kala dambeynta bulshada inay dowladdu markasta ay joogtayso dowladdu maadaama ay u qeexan tahay baa la yidhi set of institutions that uphold order and deliver social stability maadaama yihiin baa la yidhi koox institutions ama hay-ada oo isu tegay oo muxuu ahaayey kala dambeynta iyo sidoo kale deganaanshana bulshada kala dambayntana ilaaliya bulshadana kala deganaansho u keena aragtidan kale saddexaad oo organizational view iyaduna waxay aragtidani u qeexday dowladdu inay tahay the set of institutions that are recognized by the public in that they are responsible for the collective organization of social existence waxay u arkeen baa la yidhi muxuu waa koox institutiona oo bulshadu ay garwaaqsan tahay sidoo kalena mas-uulka muxuu ahaaye social existence-ga muxuu ahaa jiritaanka bulsho sidoo kalena laga maalgeliyo at the public's expense kharashaadka dadweynaha lagu maalgeliyo oo dowladdaas waxay ku dhaqaaqaysaa u yahay kharashka dowladda dadweynaha ka yimaada marka virtue-ga ama meesha uu wanaagga u leeyahay muxuu definition-kani waxaa weeyaan baa la yidhi wuxuu kala soocayaa state iyo civil society-gi buu kala saaray la kala soocay definitionadii hore civil society-ga iyo state-ka qeexitaanku muuna kala soocay midda afraad waxaa weeyaan international approach waxaa la yidhaha aragtidani waxay u aragtaa dowladda as an actor on the world stage waxay u aragtaa baa la yidhi inuu yahay dowladdu inay tahay actor inay cid go-aan iyo saameyn kula tahay muxuu ahaay fagaarayaasha caalamka marka waana basic unit of international politics stateku waa shayga aasaaska u ah siyaasadda caalamiga oo haddayna states jirin international politics kuma jira isaga dhiganta waxyaabaha aasaaska ay ka bilaabatay ka mid tahay arrintan waxay ka dhigan tahay ama definition-kani waxaa la yidhi wuxuu caddaynaya oo sheegaya qaab dhismeedka dowladeed ee labaalaha ay iska leedahay dowladdu oo ah dowladdu inay laba weji leedahay two face waxaa la yidhi one looking outward and the other looking inward weji dowladdu ay leedahay oo ah wejiga muxuu ahay gudaha ah iyo midka dibadda ah agaran tahay xiriirka ay la yeelanayso dadkeeda iyo state-kaasi xuduudaha ay ka taliso iyo xiriirka arrimaha dibadda iyo weji ku muxuu ahaay wejiga ay kula macaamisho muxuu ahaay dowladaha kale marka definitionadii hore baa la yidhi iyagu state-ka inward looking face kan bay eegayeen sidoo xiriirka ay la leedahay individualska iyo groupska ku dhex nool baa la borderska ama xuduudaheeda iyo sidoo kale awoodda u leedahay to maintain domestic order iyo inay joogtayso muxuu ahaayey
kala dambeynta maxaa waddan gudihiisa iyo xoogga saaraya definitionada international views the international view deals waxaa la aragtidan laakiin caalamiga iyadu waxay states outward looking face oo ah its relations with other states xiriirka ay dowladdu leedahay dowladaha kale and therefore sidaa daraaddeed iyo awoodda u leedahay baa la yidhi inay ilaalo ay keento oo ay ka ilaaliso muxuu ahay waddanka iyo shacabkaba external attack duulaan dibadda ah marka definitionkan haddaba classic definitionka state of the state in the international law waxaa la yidhi sharciga caalamiga qeexitaanka ku yaalla ee dowlad lagu qeexay waxaa la helay ama qeexitaankan waxaa la sameeyey waxaa lagu helay muxuu ahay in the Montevideo Convention qaraarkii Montevideo oo magaalo waxaan malaynahay caasimadda Uruguay ku saabsanaa on the rights and the deeds of the state xuquuqaha iyo sidoo kale waajibadyada dowladda 1933 soo saaray marka haddaba article-ka koowaad ee isku leeyahay qaraarkan inagoo eegayna dowladdu waa inay lahaataa 40 feature ama 40 astaamood waa inay leedahay dowladdu kow waa inay leedahay defined territory muxuu ahaayey dhul cayiman dhulkaasi ha noqdo muxuu ahaayey dhul ha noqdo ama biyo ha noqdo ama airspace-ka hawada ha noqdo waxaa kaloo soo geli karaa muxuu ahaayey territory-ga ay dowladdan iska leedahay safaaradaha iyo sidoo kale ay ku leedahay wadamada kale dibadda marka territory-gaasi size-kiisu intuu la ekaanayo way kala duwanaan kartaa wadamada qaarkood way waaweyn soolaan China iyo muxuu ahaayey Ruushka iyo Mareykanka iyo wadamadaas size-kooda weyn wadamo waxaa jira iyaguna size-kooda aad u yar yahay oo laga yaabo inay magaalo hal gobol oo waddan kale ka mid ah ay xitaa ka yaryihiin marka ma jirto size go-an oo waddanka lagu go'aaminayo defined territory waa inuu jiro in doonaa la ekaado sidoo kale waa inay leedahay dowladdaasi permanent population bulsho joogta ah waa inay leedahay bulshadaas size-keedu iyo sidoo kale size-keedu kuma xidhno muxuu ahaayey size go-an oo ku xidhan ma jiro wadamada qaarkood bulshooyinkoodu waa 1 bilyan iyo ka badan qaarkoodna waxaa laga yaabaa dhowr kun sidoo kale mid saddexaad waxaa weeyaan an effective government xukuumad shaqaynaysana sidoo kale waa inay jirto iyo oo dowlad fashilantay waa inay jirmid iyo sidoo kale muxuu ahaayey sovereignty dowladdaas waa inay madax bannaan tahay madax bannaanidaas marka waa labo madax bannaani gudaha iyo mid dibadda midda gudihii waxaa weeyaan dowladdaas dhulka xuduudda ay ka taliso waa inayna jirin awood kale oo go-aan leh oon iyada ahayn oo muxuu ahaayey meesha ka taliso madax bannaanida dhanka dibaddiina waxaa weeyaan waa inay dowladdaas ka madax bannaan tahay nooc kasta oo saameyn ama faragelin ama xakamayna oo muxuu ahaayey wadamada dibadda waxaa la yidhi 40 attributes-kana 40 tilmaamoodeen hore soo aragnay waxaa sii dheer baa la yidhi the contemporary political theorists and the UN waxaa la yidhi aragtiyahanadan muxuu ahaayey siyaasadda xilligan iyo sidoo kale qaramada midoobay waxay u arkaan recognition-ku inuu yahay the fifth essential attribute of the state astaanta ama sifada shanaad ee laga maarmaanka ah ee dowladdu inay yeelato recognition ah in la garwaaqsan yahay dowladdan inay haysato muxuu ahaayey aqoonsi waxay ka dhigan tahay for a political unit to be accepted as a state with an international personality of its own waxaa la yidhi political unit gaar ah salaan waddan gaar ah si loo arko ama loogu aqbalo inuu yahay state lehna muxuu ahaayey shakhsiyad caalamka muxuu ahaayey magac ku leh oo gaar ah waa in la garwaaqsadaa waa inay garwaaqsadaan baa la yidhi inay dowlad ahaan waa in loo garwaaqsanaa by a significant portion of the international community qayb muhiima ama qayb weyn oo ka mid ah bulshada caalamka waa inay garwaaqsan tahay waxay ka dhigan tahay for a state to be legal actor in the international state dowlad say noqoto baa la actor ama inay saameeyo ama ruux go-aan ku leh muxuu ahaayey caalamka sharci ahaan actor sharci ah say u noqoto waa fagaraha caalamka other actorska sida saalaan stateska iyo international intergovernmental and non governmental organizations waxaa la ururada dowladda Soomaaliya iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo sidoo kale dowladaha laftooda waa inay garwaaqsan yihiin must recognize it as a state dowlad ahaan waa inay garwaaqsan yihiin marka waxay dhahaan waa tilmaanta shanaad ay tahay inay yeelato ama feature-ka shanaad ee dowladda inay yeelato ay tahay waa recognition waxaa jira haddaba aragti iska soo horjeeda oo ku saabsan muxuu state rival theories of state aragtiyaha waxaa jira iska soo xifaaltamay oo state ku saabsan marka waxaa jira aragtiyo fara badan oo state-ka ku saabsan ama dowlad qeexaya mid kasta ayna waxay leedahay waxyaabo badan bay egtaa iyo dhinacyo kala duwan iyo sidoo kale originskeeda asalkeeda meesha ka timid way kala duwan yihiin marka qaabka usoo horumartay iyo saameynta bulshada ku leedahay iyo sidoo way ku wada kala duwan yihiin marka aragtiyahan waxaa ka mid ah pluralist state aragtidan waxay leedahay dowladda waxay u aragtaa inay tahay dhexdhexaadiye bulshada u dhaxaysa
waxayna leedahay dowladdu waxay ka timid heshiis ay gaadheen ashkhaas ama bulsho garwaaqsatay in sida keliya lagu ilaalin karo deganaanshaha iyo nabadda bulshada inay tahay in awood madax bannaan la sameeyo. marka sidoo kale aragtida labaad ee kalena waxaa weeye the capitalist state. Capitalists Marxists waxay leeyihiin baa muxuu ahaay in dowladda iyo qaab dhismeedka dhaqaalaha ee bulsho iska leedahay iyo dowladda si kala madax bannaan looma fahmi karo ma isku xidhan yihiin markaas leeyihiin. nooca saddexaad ama aragtida saddexaad leviating state-kuna waxay leedahay waa nooc dowladda oo markasta dowladdu waxay ka shaqaysaa dano ka duwan kuwa ay muxuu ahaay ay bulshadu leedahay. aragtidan tusaale dowladda waxay u aragtaa waxaan loo yaqaano absolutist monarch ama dowlad wax kasta gacanta ku hayso oo dad gaari gacanta ku hayaan noocaasi inay tahay nooca dowladeeda ugu fiican ayay u arkaan. noocan afraad patriarchal stateskuna iyaduna waa nooc dowladeed oo ay raggu muxuu ahaay saameyn ballaaran ku leeyihiin oo dominate gareeyeen. marka dadkan ololeeya muxuu ahaay ma dhahaa dumar baan oleynaa feminist la yidhaahdo ayaa u arkay inay tahay nooc dowladeed oo muxuu ahaay cadaalad darro ku dhisan. marka waxaa haddaba door bay yeelataa dowladdu qeexitaanada inoo ku salaynayna role of the state. dowladdu doorka iska leedahay doorka dowladda lafteeda waa la isku khilaafsan yahay. marka waxaa la yidhi turjumaadaha kale iska soo horjeeday ee la turjumanayo awoodda dowladda waxay saameyn toos ku leeyihiin doorka iyo mas-uuliyadaha ay dowladdu iska leedahay. marka aragtiyo fara badan baa jira. waxaa jira baa la yidhi khilaaf weyn oo ku saabsan the exact role of the state should play. The exact role the state should play. doorka saxda ay tahay dowladdu inay qaadato khilaaf weyn baa ku saabsan iyo kujaa ka jira. saa darteed iyo sidoo kale the proper balance between the state and civil society iyo sidoo kale isoo dheelitirnaanta muxuu ahaay bulshada rayidka iyo dowladda iyo lafteeda doorka dowladda iyo bulshada. marka state forms kala duwan ee jira baa la yidhi waxaa ka mid a kuwan soo socdaa ka mid a. marka midnid baan arkaynaa minimal states, developmental state, social democratic state, collectivized state. mid baan arkaynaa minimal states waxaa la yidhaha si magac waad ka dhadhasan kartaa dowladdu doorka ay leedahay wuu yaryahay. waxaa la yidhi its aim is to ensure that individuals enjoy the widest possible realm of freedom. waxaa la yidhi ujeedada laga leeyahay minimal states waxaa weeyaan in ashkhaastu ay helaan muxuu ahaaye xorriyadda ugu ballaaran ee ay heli karaan agarinta dowladda doorka ay leedahay iyo faragelinta ay dowladdu leedahay in laga dhigo wax aada u yar. stateka aragtidani waxay leedahay states merely a protective body. dowladdu waa keliya waa xubin ilaalo dadka ka ilaalinaya dhibaatooyinka waxaa shaqadeeda aasaaskiina ama dhexaadkiina waxaa weeyaan baa la yidhi inay keento framework of peace and social order. waxaa la yidhi hanaan la raaco oo nabad iyo keena muxuu ahaay deganaansho bulsho ama kala damayn bulsho kaasoo muwaadiniintu ay arrimahooda u fuushan karaan kolba sidaa iyagu arkaan inay u fiican tahay. nooca labaad developmental states waxaa la yidhi iyagu developmental state waxaa la yidhi waa dowladda faragelisa economic life nolosha dhaqaalaha bulshada ayay faragelisaa with a specific purpose of promoting industrial growth and economic development. iyadoo ujeedada gaara wadato ah inay hormariso korriinka warshadaha iyo sidoo kale horumarka dhaqaale oo ujeedada u faragelinaysaa hal dhinac oo kaliya ayay faragelinaysaa oo dhanka dhaqaalaha nolosha qaybta dhaqaalaha faragelinaysa waxayna u faragelinaysaa iyadoo ah inay hormariso korriinka warshadaha iyo horumarka dhaqaalaha. nooca saddexaad social democratic ama welfare states iyaguna waxaa weeyaan baa la yidhi iyaguna faragelin bay sameeyeen laakiin way ka duwan tahay faragelintoodu. waxaa la yidhi whereas developmental statesku ay ku dhaqmaan baa la yidhi interventionismka si ay muxuu ahaay economic progress u keenaan ama horumar dhaqaale u keenaan. social democratic statesku iyagu waxay farageliyaan baa la yidhi with view to bring about broader social restructure. waxaa la yidhi iyagoo aragtida aha qaba inay keenaan in bulshada dhanba dib loo habeeyo badanaana iyadoo lagu salaynayo baa la yidhi principles mabaadii iyagoo laga duulayo lagu salaynayo dib habeynta sida soolaan oo kale cadaaladda iyo sinaanta iyo waxyaabaha iyadoo lagu salaynayo in bulshadii dib loo habeeyo dhaqaalaheeda. collectivized states iyagu muxuu ahaay way ka duwan yihiin kuwii hore. waxaa la yidhi way ka yaraha muxuu ahaay developmental iyo social democratic states waxaa la yidhi economic life-ka ayay faragelinayeen aragtida ujeedada u faragelinayeen waxay ahayd baa la yidhi with a view aragtida ah inay hagaan ama taageeraan baa la yidhi largely private economy. waxaa la yidhi dhaqaale gaar loo leeyahay dhaqaale intiisa badan ama gaar loo leeyahay
laakiin collectivized states waxaa la yidhi bring the entirety of economic life under state control. noloshii dhaqaalaba dowladda ayay hoos keeneen oo dowladda wixiiba gacanta ku haysa. Totalitarian stateskuna iyaguna sidoo kale waxaa la noocan waa the most extreme and extensive form of interventionism is found in the totalitarian states. waxaa la nooca ugu daran ee ugu baaxad ballaaran ee faragelina wuxuu ka jiraa totalitarian stateska. waxaa la totalitarianku is the construction of an all embracing state, ama essensiga nuxurka laga leeyahay ujeedada laga leeyahay waxaa weyn in la dhiso dowlad wax kasta ka kooban taasoo saameynteedu baa leeyahay penetrates every aspect of human existence. saameynteedu baa leeyahay ay taabanayso dhinac kasta oo nolosha ka mid midii hore hadda soo aragnay collectivized statesku dhaqaalaha dhan bay soo keenaysa, laakiin tani waxaa la yidhi keliya economiga isma hoos keento oo gacanta kuma hayso, but also education, culture, religion, family life and so on. waxaasoo dhan waxay hoos keentaa baa la yidhi waxbarashada, dhaqanka, diinta, nolosha qoyska, dhammaan waxay hoos keentaa baa la under direct control, under direct state control. maxkamadaha dowladda iyo toos soo hoos keenta waxaa dhan iyada gacanta ku haysa. religious stateskuna iyaguna waxaa weeyaan baa la yidhi waa religious statesku are found on the basis of religious principles. waxaa la yidhi waxaa iyagu ku salaysan yihiin principleska ama mabaadi'da muxuu ahay diimeed baa lagu saleeyaa dowlad diimeed. waxaan soo aragnay haddaba muxuu ahaa state waxay taa soo aragnay understanding government, fahmidda muxuu ahay xukuumad maxay tahay. state iyo government waa farqi baa u dhexeeya. waxaa la yidhi waa maxay dowlad. waxaa la yidhi in its broadest sense macnaha si ugu macnaha bal ugu adaan eegna baa la yidhi to govern means to rule or control others. govern macnaha wax kaliya tahay inaad xukunta ama xakamayso dad kale. marka saa darteed government saa darteed waxaan u macnaysan karaa baa la yidhi any mechanism through which orderly rule is maintained. hab kasta oo sharciga iyo kala dambeynta lagu ilaaliyo ayaan dowlad manaan. shaqadeeda ama featureka ugu muhiimsan ay leedahay waxaa weeyaan baa la yidhi ability to make collective decisions and the capacity to enforce them. awoodda ay u leedahay in muxuu ahaayey ay go-aan wada jira samayso, sidoo kalena ay awood u leedahay inay go-aanka dhaqan geliso ayaa featureka ugu muhiimsan ama tilmaanta ugu muhiimsan ee dowlad government ee xukuumadda lagu gartaa. waxaa la yidhi waa sidoo kale waa body ama waa xubin ama kaasoo maamula a country waddan, and the main organization dealing with affairs of the whole country. iyo sidoo kale waa ururka ugu muhiimsan ee muxuu ahaayey arrimaha waddanka gacanta ku haya state governmentigu. sidaa daraadeed governmentigu waxaa weeye one of the most essential components, mid ka mid a qaybaha ugu muhiimsan. sidoo kale an administrative wing of the state waxaa la yidhi garabka maamula ee stateku iska leedahay weeyaan governmentigu. marka nooc kasta oo xukuumadii say u noqoto baa la stable and effective, mid degan oo shaqaynaysa, waa inay lahaataa two essential attributes, labadan tilmaamood ee muhiim oo authority iyo legitimacy. authority waxaa la yidhi politicska dhexdeeda waxaa la yidhi implies the ability to compel obedience. macnaheed waxay ka dhigan tahay awood aad u leedahay dadka kale inaad ku qasabto inay kuu hoggaansamaan. waxaa loo qeexi karaa baa la yidhi legitimate power, awood sharci ah ama saxa. power laakiin waa ability to influence the behavior of others. awood aad u leedahay muxuu ahaa inaad dadka kala saameyn karto. marka power iyo authority way kala duwan yihiin. authority waa awood sharci ah, powerna waa awood caadi ah. awood aad u leedahay muxuu ahaa inaad cid kale dana ama rabitaankaa ku qasabto. authority hadda waa is the right to do, waa xaq aad u leedahay inaad saa samayso, inaad ruuxii kale aad waxaad ku qasbo xaq u yeelato. authority saa darteed based on acknowledged duty to obey rather than on any form of coercion or manipulation. waxaa la yidhi authority saa darteed waxay ku salaysan tahay waajibaad la qirsan yahay ee kuma salaysan muxuu ahaa qasab iyo in ruuxii muxuu ahaa wuxuuna rabin lagu qasbo. saa darteed authority waa legitimate justification and the right to exercise that power. awoodda xaq aad u leedahay inaad muxuu ahaa isticmaasho ayaa la yidhahdaa authority. midda labaad ama featureka labaad ay xukuumad kasta inay yeelata ay tahay waxaa weeyaan waa legitimacy. marka legitimacy ereygan wuxuu ka yimid legitimate oo ereyga latinka oo ah to declare law, in la caddeeyo inuu shaygaas sharci yahay. marka waxay ka dhigan tahay baa waa rightfulness. saa darteed legitimacy waa attribute of government that prompts the government to comply. waxaa la yidhi waa legitimacy waa astaantahay dowladdu iska leedahay, kaasoo baa la ku dhaqaajisa la xukumaha ama shacabka to comply willingly with its authority. awoodda ay iska leedahay dowladdu inay iyagu si doonitaankooda ah ay ugu hoggaansamaan. it's the popular acceptance of governing regime or law as an authority.
waxaa la yidhi waa aqbalaada guud ee bulshadu aqbasho xubinka ama muxuu ahaay taliska ama xukuumaddan talinaysaay ama sharciga inuu authority yahay in loo la aqbalo marka waxaa jira ujeedooyin ay iska leedahay muxuu ahaay iyo shaqooyin ay leedahay muxuu ahaa xukuumadda shaqooyinka waxaa ka mid ah self preservation ilaalinta nafta ka mid ah oo nafta muwaadiniinta in la ilaaliyo shaqooyinkooda ay ka mid tahay muxuu xukuumadda sidoo kale waxaa ka mid ah distribution and regulation of resources qaybinta iyo sidoo kale nidaaminta iyo la socoshada kheyraadka waxaa kaloo ka mid ah management of conflicts maareynta khilaafaadka u dhexeeya shacabka inay maareyso waa shaqooyinkeeda ka mid sidoo kale waxaa ka mid ah fulfillment of social and group aspirations inay fuliso dowladdu rajooyinka iyo higsiyada iska leeyihiin muxuu ahay kooxaha ama bulshadu salaan xuquuqaha wadareed ee koox gaar ah bulshadu leedahay waxaa kaloo ka mid ah protection of rights of citizens ilaalinta xuquuqda muwaadiniinta sidoo kale waxaa ka mid ah protection of property hantida inay ilaaliso dowladdu waxaa kaloo ka mid ah implementation of moral conditions waxyaabaha muxuu ahay akhlaaqiga ee bulshada wanaageeda ah inay dowladdu hirgeliso waxaa kaloo ka mid ah provision of goods and services agab iyo adeeg inay dadka siiso shaqooyinkeeda ka mid marka state iyo government aan soo understanding citizenship fahmidda maxay xukuumad dhalashada muwaadinimada waxaa la yidhahdaa guud ahaan concept of citizenship varies from society to society waxaa la aragtay citizenshipku bulshooyinku kala duwan tahay iyadoo ku xidhan goobta iyo sidoo kale xilliga iyo sidoo kale political organizationka laga hadlayo intaaba inagoo ku salayna way kala duwan tahay marka difference inkastoo ay jiraan baa la yidhi haddana waxaa jira common elements xubno waxyaaba guud ay ka sameyn yihiin sida rights deeds belonging identity participation one can find in different in definitions of them waxaa la yidhi waxyaabahan waajibaad xuquuq lahaansho identity ama huwiyad ruux dadu ka tirsan yaho iyo sidoo kale waxyaabahaas ka mid waxyaabaha laga sameeyay marka citizenshipka dhinacyo kala duwan baa lagu qeexi karaa citizenship as a status of right maqaam xuquuq ahaan iyadoo laga qeexayo waxaa ka dhigan tahay keliya markaad muwaadin noqoto ruux markaaba wuxuu helayaa muxuu ahaay si markaaba waxaad yeelanaysaa xuquuqaha marka waxaa ka mid noqon kara liberty rights saalaan liberty rights waxaa la yidhi waa freedom given for the right holder to do something waxaa la yidhi waa xaqa uu iska leeyahay ruuxan xaqa iska leh waa xorriyaddu haysta baa ruuxan xaqa iska leh inuu shay sameeyo sidoo kale ma jiraan baa la yidhi obligations on there are no obligations on other parties to do or not to do something to aid the bearer to enjoy such rights dadka kalena wax waajibaadoo saaran ma jiro baa la yidhi oo ah inay wax sameeyaan ama inay wax sameyn si ruuxan xaqa iska leh uu xaqiisa u helo oo xaqani dadka kale waajibaad ah inaad saad xaqaaga u hesho inay wax sameeyaan ama saaray laakiin climate rights ku ka soo horjeedana waa in firsiga iska leeyahay lidka baa liberty rights waxaa la yidhi iyagu responsibility ayay saaraan ruuxa kale oo xaqaaga saad u hesho waa qasab ruuxu inuu kale inuu waajibaadkiisa guto power rights kuna waxaa la yidhi waa xaqaad u leedahay dad kale soolaan oo kale inaad muxuu ahaa inaad go-aano soolaan aad leedahay kala gaadho soolaan hantidaas kale oo kale inaad wareejiso inaad hantidaada cid aad ugu deeqdo immunity rights kuna waxaa la yidhi waa xaqa muxuu ahaay xasaanad hal immunity rights waxaa la yidhi waa dadka waxay ku siinayaan bal dadka kale inayna awood u lahayn inay bedelaan right holder situationkii in some way inay si u bedelaan tusaale ahaan civil servantska ama shaqaalaha rayidka baa la yidhi waxay xaq u leeyihiin inaan shaqadooda laga erin haddii xukuumad cusub ay awoodda qabsado ay waddanka timaado inaan shaqada laga xaq u leeyihin waa damaanad muxuu ahaa immunity rights muxuu ahaa xasaanad bay haystaana inaan laga erin muxuu ahaa shaqadooda haddii dowlad xukuumad cusub qabsato waddanka sidoo kale waxaa laga eegi karaa membership and identity muxuu ahaa xubinnimo marka muwaadin noqoto meel baad xubin ka tahay sidoo kale identity gaara ayay muwaadinimadaasi wadataa oo muxuu ahaay dad gaaraad ka tirsanaa sidoo kale participation ka qaybgal oo waxaa jira waxyaabo loo ogol yahay muwaadinku inuu ka qaybgalo oo cidda kale muwaadinka hayna ayna ka qaybgeli karin marka ka qaybgal dhankaana waa laga eegay waxaa kaloo jira inclusion iyo exclusion oo dadka hal waddan ku wada nool dhammaantood muwaadiniin ma wada qayb ka mid way ku jiraan oo muwaadiniin qayb ka midana muwaadinimadooda ay ka saarmayaan marka muwaadinimada hadday meesha timaado dadkii meesha ku wada noolaa qaybna way ka bixi qaybna way soo galaysaa marka waxaa jira haddaba aragtiyo badan oo ku saabsan muxuu ahaay citizenshipka waxaa la yidhi aragtiyo ama qaabab kala duwan waxaa jira loo qeexay maxaa citizenship inta ugu badanna waxaa la yidhi waxay ka hadlaan aborigiskan ama aragtiyadan soo ay ku salaysan yihiin liberal communitarian republican iyo sidoo kale multicultural citizenship
hadda waxaa jira qaabab kala duwan oo loo helo muxuu ahaye citizenshipka ama muwaadinimada loo helo waxaa ka mid ah citizenship from birth or of origin ama waxaa la yidhi inaad ku hesho dhalasho ama asal inaad ku hesho sidoo kale waxaad ku heli kartaa dhalashada naturalization ama law ama waddanka in badan deganeed inaad yaad ama sharci aad ku heli kartaa sidoo kale waxaa jira marka waa si guud modes of acquiring Ethiopian citizenship muwaadinimada Ethiopia qaabka loo helo tusaale by descent acquisition by descent waxaa la tafiir ahaan waxaad ku heli kartaa ama aabaha iyo hooyada midkood haday ay ka soo jeedaan waxaa kaloo ku heli kartaa acquisition by law oo naturalization waad ku heli kartaa marka acquisition by law-gii baa qaab kala duwan noqon karaa waxaad ku heli kartaa grant on applications ama registration waxaa la yidhi codsi tusaale muwaadin ajnabi oo ahaa waddanka degan inuu codsi ha gudbisto inuu muxuu ahaye muwaadin dhalashada la siiyo marka shuruudo isagoo loo eegayo wuu heli karaa sidoo kale waxaad ku heli kartaa muxuu ahaye case of marriage iyadoo lafteeda shuruudo ku xidhan dad muwaadin waddanka aad guursato waxaad dhici kartaa inaad hesho shuruudaha isagana ku xidhan sidoo kale waxaad ku heli kartaa cases of adoption kiiska ama xaaladaha la xidhiidha ilmo ka dhigashada ilmo muxuu ahaye muwaadin waddanka u dhashay uu ilmo ka dhigto oo dhaho ilmahaygii ilmahaasi wuu heli karaa isaguna shuruudo isaguna ku xidhan da'diisa iyo waxyaabaha iyada la eegi by special case iyaduna citizenship by special xaalado gaaran ood ku heli kartaa tusaale ruux danaha waddanka ka shaqeeya ama wax weyn waddanka u qabtay oo kale oo abaalmarin ahaan waa loo siin karaa waxaa kaloo ku heli kartaa readmission to Ethiopian nationality reintegration ama restoration waxaa ruux mar hore muwaadinimadiisa lumiyey dib mar labaad inuu loogu soo celiyo uu ku heli karaa waxaa jira hadda waxa la yidhaha dual citizenship ama muwaadinimada inaad laba waddan muwaadin ka ahaato oo laba dhalasho haysto dual citizenship baa la yidhi waxaa la yidhi waa inaad ahaato waa xaaladda inaad ahaato muxuu ahay muwaadin inaad ka ahaato laba waddan marka waxaa la yidhi hal ruux wuxuu heli karaa in ka badan hal oo ah muxuu ahay dhalashooyinka waddan ruuxaas marka waxaa la odhan karaa isagana waa multiple citizenship ma laba in ka badan buu heli karaa waa dhalashooyin badan duality or multiplicity arises because of the clash among the erayadan waxaa la yidhi duality-ga ama laba dhalasho inaad haysato ama laba ka badan haystaa waxay timaadaa isku dhac markuu yimaado waxaa loo yaqaanaa jisol iyo jisangor waxaa la yidhi dhalashada markaad ku heshay muxuu ahaaye waddankaad u dhalatay dhalashadaad ku heshay dafiir iyo dhalashadaad ku heshay muxuu ahaaye waddanka ku dhalashadiisa iyo naturalization saddexdaas iska hor yimiday ayaa muxuu ahaa yaa keeni kara inaad dhalashooyin fara badan aad hesho oo mid inaad ku heshaa tusaale waxaa la yidhi a baby born to a French family qoys u dhashay baa la yidhi muxuu ahaa qoys Faransiisa oo booqanaya Mareykanka wuxuu heli karaa baa la US citizenship by jisol maadaama Mareykanka ku dhashay wuxuu heli karaa dhalashadii Mareykanka sidoo kale French citizenshipna wuu heli oo jus sanguinis muxuu ahaa dafiir ama inuu asalkiisii waalidkii ka soo jeedaan ama Faransiis ku heli karaa marka laba dhalasho yuu helay sidoo kale waxaa la yidhi ilmo isla ay dhaleen hooyo iyo aabbo muxuu ahaay u dhashay laba waddan oo kala duwan wuxuu heli karaa baa la yidhi dual citizenship buu ku heli karaa through descent dafiir hooyadii iyo aabihii labada maadaama laba waddan kasoo kala jeeda labada waddan dhalashadooda uu heli karaa sidoo kale waxaa la yidhi state may allow its naturalized citizens to keep their original citizenship dowladdu sidoo kale waxaa laga yaabaa inay ogolaato dadkan naturalizedka ee waddanka in badan ku noolaa ee dhalashadooda siisay dhalashadoodii asalka hadna inay iska haystaan sidoo kale dowladaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa baa la yidhi inay diidaan inay dhalashadii kala noqdaan muwaadiniintooda oo doon muwaadinkooda waddan kalena uu ka qaata inayna kala noqon baa sabab kala duwan iyagu eegaya saa darteed arrimahaas oo dhan waxay sababi karaan muxuu ahaye dual multiple citizenship inay dhacdo muwaadinimo ruuxii laba in ka badan inay dhalashadooda haysto marka qaabab kala duwan oo loo lumiyaa jira ama aad ku waayi karta oo muxuu ahaye muwaadinimada waxaa ka mid ah deprivation in laga xayuubiyo lagala noqdo waxaa la yidhi waa involuntary law of citizenship inaad si aad iska ahayn adigu ahaan doonitaanka ahayn aad ku lumiso taasoo timaado baa markay dowladdu ama maxkamad soolaan oo kale ay go-aan gaadho to nullify an individual citizenship inay waxa kama jiraan ka soo qaato muwaadinimadii ruuxan oo lagala noqdo waxaa kaloo ku lumin kartaa lapse ama expiration inay dhacdo soolaan waxaa la yidhi noocani is not applicable in Ethiopia kama jirta baa la yidhi lapsigu waa la yidhi waa nooc ruuxu uu ku lumin karo muwaadinimadiisa haddii in badan waqti dheer uu deganaado muxuu ahaye dibadda hadduu deganaado baa la sanado ka badan intaasi u fasaxay tusaale ahaan
waxaa la yidhi muwaadin hindi haddii uu hindiya meel ka baxsan ku noolaado 7 sano si xidhiidh ah in ka badan 7 sano si xidhiidh ah hadduu u maqnaado wuxuu luminayaa muwaadinimadiisii hindiya oo his Indian nationality ama her Indian nationality wuu lumin baa la yidhi by the principle of lapse. nooca kale lagu lumin karo waa renunciation inaad u iska celiso dhalashadii waxaa la yidhi waa voluntary way of losing citizenship si iska inaad doonitaankaada u celiso. waxaa la yidhi the Universal Declaration of Human Rights qaraarka ama baaqa caalamiga ee xuquuqda aadamaha 1948 lasoo saaray wuxuu damaanad qaadayaa the right of a person to change his or her nationality xaqa uu ruuxu leeyahay nationalitygiisa ama dhalashadiisa inuu bedelo. marka loss of citizenship waxaa la odhan baa la yidhi voluntary keliya haddii ruuxan qasadkiisa ay tahay sidoo kalena ruux ay ka timid individual consent ruuxan ay khusayso ee dhalashada celinaya hadday ka timid unbaa la odhan waa renunciation waa soo iskeed isugu celiya haddii kale waxay noqon waa laga xayuubiyo noqonaysa. sidoo kale wuxuu ruux dhalashada ku lumin karaa substitution dhalashadiisii inay dhalasho kala bedesho qaab badan bay u dhici kartaa. marka citizenship waxaa la yidhi wuxuu lumin karaa ruuxu haddii dowladdii ay dowlad kala bedesho where it's acquired through naturalization. On the other hand, sidoo kale this may also take place when a particular territory haddii dowlad kala bedesho dowladdaas marka naturalizationka dowladda teeda ku qaato tiisii horena uu lumiyo. sidoo kale waxay dhici kartaa haddii dowlad kale waxaa la yidhi when a particular territory is annexed by another state marka dhul gaara ay dowlad kale isku ballaadhiso marka dadkii deganaa dhulkaas ku dhex nool baa la yidhi with the annexed territory dhulkan la isku ballaadhiyo dadkii ku noolaa will be replaced by the citizenship of the subjugated. waxaa la yidhi waxaa ku bedelaysa oo dhalashadiisa qaadanayaan waddankan dhulka qabsaday dhalashadiisa waddankoodii hore dhalashadiisa waa luminayaan. statelessness oo muxuu ahay dowlad la-aan ruuxan dowlad lahayn baan caalamka dowladna ku tagsanay. waxaa la yidhi according to the international inagoo eegayna sharciga caalami stateless person ruuxa dowlad la-aantii waxaa la yidhi waa shakhsiga who is not considered as a national waa ruuxa ayna muwaadin u arkin baa la yidhi by any state under the operation of the state dowladna sharcigeeda hoostiisa ayna u arkin muxuu ahaay inuu muwaadin u yahay oo dowlad tirsanayso oo muwaadin ahaan u tirsanaysa ruux ayna jirin baa la yidhahdaa waa stateless person. statelessnessku waxay timaadaa baa la yidhi when the state failure leads to people flee from their home country marka fashilka dowladii uu sababay dadku inay waddankooda ay ka qaxaan ha ahaata baa la yidhi be it due to invasion and conquest by another state ha ahaata baa la yidhi qaxitaanka waxa sababay duulaan iyo qabsasho oo waddanka la qabsaday civil war ha noqoto dagaal sokeeye macluul ha noqoto sidoo kale ama ha noqoto baa la yidhi talis ama dowlad muxuu ahaayey dulmi badan oo waddanka ka jirtay ka carareen ha noqoto. marka individuals could also become stateless persons dadku sidoo kale dowlad la-aan bay noqon karaan because of deprivation marka laga xayuubiyo dhalashadooda iyo sidoo kale markuu ruux dhalashadiisa iska celiyaba haddii uuna helin waddan kale uuna dhalasho keenin dhalashadiisii hore uu iska celiya ama waa laga xayuubiyo tu kalena muuna helin ruuxaasna sidoo kale stateless buu noqon karaa.